tababarkan oo socday muddo 3 maalmood ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa iyadoona ay soo qaban qaabisay wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda oo kaashanaysa xafiiska Taiwan. Tababarkan ayaa la xiriiray mashruuca isku xidhka xogta dawladda, waxaana ka soo qayb galay wasaaradaha iyo qaybo kala duwan oo kamid ah hay'adaha dawladda. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda hal-abuurka iyo casriyeynta Daacad Fataax Ismaan Aadan, waxaana uu ka warramay ahmiyadda uu tababarkani u lahaa ka qayb qaatayaasha. waxyaabo kala duwan baynu taabanay. marka hore mashruuca laftiisa oo intergovernmental data exchange ama xogta dawladda in la isku wadaarsado baynu platformka lagu dhisayo wax ka taabano in soo sharaxnay. muhiimadda uu tababarka noocan leeyahay waxa weeye ama mashruucan isroodka uu magac bixinay data exchange ama xogta dawladda ee la isku wadaarsanayo. waxa ugu muhiimsan xogtu meel gaar ah xogta dawladdu oo dhan bay ka dhaxaysaa, waana loo baahan karayaa meel kasta oo dawladda ah. dawladdii waa unuga qura ee isku wada xidhan. marka xogta taala imika kale wasaaradda arrimaha gudaha oo kale waa xog dawli ah oo qaranku leeyahay, loogana baahan karo meel kasta oo kale oo hay'ad qarankii ku metelaysa ay joogto. sidoo kale wasaaradda gaadiidku xog baynoo haysaa, dhici karayso inaynu meel kale uga baahan karno. waxa la mid ah Central Bank, waxa la mid ah wasaaradda maaliyadda. imika ba xogta weynu gaadhnaa, waxaynu ku gaadhnaa qaab aan ahayn casri ama tiknoolajiyad ahayn. inta la tago ayaa laga soo qaadaa warqadeen isku weydaarsanaa xogta. laakiin waxaynu doonaynaa inaynu mar haddaynu sistamyo casriyana leenahay, sistamyadeena casriga ah sida aynu wada hadlayno ayaguna inay maxay sidoo kale wada hadlaan. madaxa xafiiska ee farsamada Taiwan ee Hargeysa isna dhankiisa ka hadlay ayaa tilmaamay doorka iskaashiga ee ka dhaxeeya wasaaradda isgaarsiinta iyo Taiwan. agaasimaha waaxda ACT-ga ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa isna dhankiisa ka hadlay, waxaana ka warramay qaybta ay ka qaateen tababarkan socday 3 maalmood. hawshan waa hawlan u baahnayn aad ugu baahnayn hadaynu nahay wasaaradaha iyo hay'adaha dalka. waxaan aad uga mahad celinayaa shirkadda Taiwan ee naga caawinaysa iyo wasaaradda isgaarsiinta oo hawsheedii ay u xil saarnayd si fiican u gudanaysa oo wasaaradihii iyo caalamkii isku xidhaysa. waxa iyaguna dhankooda ka hadlay injineeradii fulinayay mashruucaasi isku xidhka xogta dawladda, waxaana uu ka warramay ka qayb qaatayaashu sida ay uga faa'iideysteen, isagoona tilmaamay in waxyaabo badan ay ka bedeli doonto shaqadii ay qaban jireen. gabagabadii waxaa tababarkaasi soo xidhay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda Yuusuf Warsame Xasan, waxaana uu ka warramay muddada uu tababarkani u socday ka qayb qaatayaasha. systemkan aynu wadnaa waa system muhiim weyn u ah qaranka, ama annaga wasaarad ahaan iyo wasaaradeena gaarka halkan isugu yimiba, maadaama aanu nahay annagu wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolajiyadda iyo halkii laga duulayay isgaarsiinta. waxaanu ka fakaraynay in badan inaanu qayb ka noqonno dayaca jira ee ah sistamyada dawladda ee qof waliba gaarkiisa u haysto. runtii barbilow wanaagsan bay noo tahay maanta inaynu halkan iskugu nimaadno oo aynu isla eegno sistamyada iyo qaabkaan iskugu xidhi lahayn iyo qaabka aynu wada shaqayn lahayn iyo halka aynu ka duuli lahayn, oo maanta inoogu muuqata inaynu barbilow wanaagsan aynu u dhignay. Xamse Qurbaani, warbaahinta qaranka, Hargeysa.